haddii ilaahay idinkeeda leeyahay bila'aanna waan haysaa biyola'aan iyo baad la'aan xooluhu baad ma haystaan deedna habeen walba waa jiidna waa baktiyaan mudane madaxweyne salaamu calaykum marka hore waan ku salaamayna sharafle waanu kugu salaamayna xaaladda meesha ka jirta abaarta ah ee ilaahay keenay isaga subxaanahu wa tacaala marka hore wixii ilaahay karo ilahay baynu ugu mahadnaqnaa marka labaadna waxaa taagan baahi badan baa taagan adduunyada waad aragtaan bakhtiyeedii iyo adduunyada nolosheedii mid walba u aragtaan dadku wuxuu halis u yahay haraad laba dalaale haraad buu halis u yahay meel 2 kiiloomitir coodale ka shishaysa ayaa naftu kaga baxday waxa 12 jir wuxuu ka soo helay geel balcadaad meel la yiraahdo oo ka soqaysa haye bari ayuu geel ka soo helay halkaas xalaalay meel la yahaan inaan ka naftu kaga baxday shaayada ka hawlgal ilaahay waa ku garab galay oo ku garab galaya wadaha alla waa ku garab galay waxaanu qaban karaa qabanana ilaahay waxaan ka bareenno abartay kumanaan kamida bulshada Soomaaliland ee kala duwan ee ku dhaqan gobolada bariga Soomaaliland ayay saameyn weyn oo aad u xun ku yeelatay abaar ku saddex oo chief iyo joogba u diiday bulshada Soomaaliland ee ku dhaqan gobolada kala duwan ee bariga ee Soomaaliland waxaana sababtay in dadka ay abaartu wehelka la noqotay ay iskaga kala gooshaan gobollo iyo degmooyin aad u kala fog si ay ugu doontaan biyo iyo baad ay ku badbaadinayaan naftooda khatarta ugu jirta in ay ka hoydaan adduunyadan geediga lagu yahay kuwaasoo ay bulshadu u hayaamayaan hadda meesha wax loogu sheego ee ay bidaan inay ka helayaan waxyaabaha ay quudan lahaayeen maalmaha ku soo socda walow aanay dadku haysan waxa ay ku guuraan oo ay ku hayaamaan kuna gaadhaan meelaha biyo iyo baad loogu sheego madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyi iyo waftigii luxdana ee uu hogaaminayay ee ay kamid ahayd marwada madaxweynaha Soomaaliland oo ku guda jira safarkoodii xogogaal noqoshada xaaladda abaarta ayaa gaadhay magaalada madaxda gobolka Sool ee Laascaanood kuwaas oo u kurgalaya sidii ay u samata bixin lahaayeen uguna gurma lahaayeen dadka ay abaartu waxyeelada u geysatay ee u baahan in la caawiyo waxaana madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Silaanyi uu marayay meel kasta oo loogu sheego isaga iyo waftigiisa inay abaari ka jirto kaasi oo door muuqda ka qaadanaya sidii loo samata bixin lahaa dadka ay abaartu soo ridatay ee u baahan gargaaridda caawimada taakulaynta iyo dhagaysiga waxa ay ka cabanayaan waa ugu horeysay biyo la'aan cunto la'aan caafimaad la'aan iyo waxyaabaha kala duwan ee daruuriga u ah nolosha bini'aadamka iyo xoolahaba mudane Axmed Maxamed Silaanyi madaxweynaha qaranka Soomaaliland ayaa miyi iyo magaalada u marayay sidii uu indhihiisa ugu soo arki lahaa lugtiisana u gali lahaa sida ay abaartu tahay waxaana goob kasta oo uu maro oo ay joogaan dad iyo xoolaba uu ka geysanayay gargaar taakulayn waxaanuu ka jawaabayay baahiyaha ay u sheeganayeen shacabka kala duwan ee uu dhagaysanayay waxaana la siinayay bulshadaasi oo guddida heer qaran ee abaaraha ee Soomaaliland oo madaxweynaha waftigiisa ku weelinaysay ay guddoonsiinayeen bulshada ay abaartu saamaysay biyo timir caano kalluun adeeg caafimaad iyo waxyaabaha kale ee lagama maarmaanka u ah bulshada iyo xoolahaba meelaha sida weyn loogu soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliland waxaa ka mid ahaa degmooyinka Oog iyo Goori Ari Cadeeye iyo jiidaha kala duwan ee ku teedsan kuwaasoo shacabka degan deegaanadaasi ay madaxweynaha Soomaaliland ay ku qaabileen salaan qiimo leh calanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sacab iyo eraya suugaaneed ka turjumaya sida uu madaxweynaha Soomaaliland uu shacabkiisa ula qaybsanayo abaarta ba'an ee ku habsatay dad iyo xoolaba gaar ahaan dadka reer guuraaga iyo kuwa xoolo dhaqatada waxaana madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku caawinayay wixii awoodiisa ee ay kari karayso xukuumadda uu hogaaminayo waxaanu shacabka Soomaaliland ee uu marayay uu markasta madaxweynuhu xasuusinayay inay Ilaahay baryaan oo ay saamaxaan si uu raxmaadkiisa uu inoogu shubo munaasabad kooban oo lagu qabtay degmada Oog ayaa ugu horreyn waxa ka hadlay mas'uul ku hadlay magaca degmada Oog gudoomiyaha xisbiga midnimada iyo horumarka Soomaaliland ahna musharaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye mudane Muuse Biix Cabdi oo kamid ah waftiga madaxweynaha Soomaaliland ayaa shacabka ku dhaqan degmada Oog waxa uu xasuusiyay in ay iscaawiyaan oo dadka abaartu ay saamaysay ay ku waladani ee waxaysta ay caawiyaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyi oo halkaasi ka hadlay ayaa shacabka waxa uu xasuusiyay in Ilaahay ay u noqdaan
aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aniga waftiga la socdaba balaaran inaanu oog nimaadno waqti waxaan u socnaa inaanu abaaraha iyo dalka aanu ka warqabno aanu xooga la soo qaybsanno aanu socod kayagu meel badan uu gaaro marka insha Allah taala aad iyo aad baan ku mahadnaqaynaa sida fiican aad noo soo dhaweyseen waxaa sidoo kale lagu soo dhaweeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland degmada Yagoori oo ka tirsan gobolka Sool waxaana ugu horeynba munaasabad kooban oo loo qabtay ka hadlay maamulka heer gobol iyo degmo garaado cuqaal wax garad iyo mas'uuliyiin kala duwan wasiirada wasaaradaha warfaafinta iyo arrimaha gudaha oo iyaguna halkaasi ka hadlay hadaladoodii waxa kamid ahaa waftiga kanu siyaasadu ma socon barnaamijyo kale uma socon waxba uma socon wuxuu ku yimid damqasho iyo inuu xogogaal u noqdo oo ka damqanayo dhibaatada abaarta iyo dhibaatada dadka haysata inuu arko oo xogogaal u noqdo waxa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ugu baaqayaa mulkiilayaasha baabuurta xamuulka iyo booyadaha inay labaduba maanta laga bilaabo ay bishii 22 tahay ku hawl galaan kana qayb qaataan gurmadka iyo taakulaynta abaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland ku habsaday maanta waqti lagama joogo faa'iido badanna laga helayo gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane Muuse Biix Cabdi ayaa waxa uu shacabka ugu baaqay in loo gargaaro dadka ay abaartu waxyeelaysay socodkan wuxuu yahay waa gurmad abaareed oo dadka hadda wixii loo tari karo in loo taro abaartana qorshe looga yeesho dadkana lagu wacyigeliyo inay isu gargaaraan oo abaarta loo wada gurmado oo nin waliba wuxuu hayay kaga qayb galo gurmadka abaarta ee lagu badbaadinayo dadii dunyada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanya ayaa waxa uu sheegay in dadka abaartu ay saameysay ay xukuumaddiisu u gargaarayso ujeedada safarkiisuna uu salka ku hayo arrimahaasi waxaan u soconaa inaan dalka xogaal u noqono ubadeeda abaaruhu saameeyeen dalka ay dhibaatada soo gaadhay inaan mar walba ka warqabno la helo aanu dalka la tashano waxay qabaan ogaano waxaanu qaban karnaa u sheegno wixii kalena aanu Ilaahay ka barno inala caawiyo la qabto dadweynaha aad baan idinku faraxsanahay sida noo soo dhaweyseen dadaal baan ku jiraa waxba la harimayno waxa la harina ma jirto wixii aanu qaban karno waan qabanana insha Allah Ilaahay waxaanu ka bareynaa inuu abaaraha inaga kor qaado abaarta inaga qaado madar khayr qabcirka inaga siiyo iyo Ilaahay ka bareynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa safarkiisana waxa uu galay maalintii afraad kaas oo maalmaha fooda inagu soo hayana si wadan doona si ugu kurgalo xaaladda ba'an iyo dhibaatooyinka ay shacabka Soomaaliland ee gobolada bari ay abaartu ku yeelatay Axmed Saki Daahir Xasan iyo Cabdilaahi Cali Soodi telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool